shirkadda duulimaadka Juba Airways oo in muddo ah ka howlgalaysay Soomaaliya ayaa maanta si toos ah magaalada Boosaaso uga bilowday duulimaadyo toos ah oo garoonka diyaaradaha Boosaaso ay uga kala gooshi doonto qaybo kamid ah dalalka dibadda kuwaas oo in muddo ay sugayeen dadka ku nool deegaanada Puntland. Siciid Xasan Maxamed oo maareeyaha Juba Airways ee Puntland ayaa sheegay in duulimaadka ay ka bilaabeen Puntland ay noqon doonto kuwa wax badan ka bedeli doona isu socodka dadka ku nool Puntland. Annagoo ah Juba diyaaradda shirkadda diyaaradaha Juba Airways waxaan ku faraxsanahay bulshooyinka reer Puntland iyo Soomaaliyeed ku nool mandaqadan inaan u bilownay inaan u fulinay codsigoodii ahaa in ay flight toos u helaan oo dibadda ay kula xirmaan sidaa darteed maanta oo ah taariikhda 18 waxaan bilownay duulimaadkii tooska ahaa oo dibadda ku xirayay mandaqada kaasoo ah Boosaaso Dubai haddana Boosaaso Muqdisho Boosaaso Nairobi oo insha Allah maanta laga bilaabo si toos ah u shaqeyn doona oo joogta marka dadweynaha Soomaaliyeed iyo reer Puntland waxaan ugu hambalyeeynaa in hawshaas ay fushay oo hadda ka bacdi ayna ku dhuftoonayn maaragtay waqti dheer inay ku lumiyaan transit insha Allah. maareeyaha garoonka diyaaradaha Boosaaso ayaa dhankiisa soo dhaweeyay duulimaadka ay shirkadda Juba Airways ka bilowday garoonka diyaaradaha Boosaaso. marka ku soo dhawaada aeroboortka Boosaaso iyo diyaaradii Juba Airways oo idin qaban doonta service wanaagsan iyo aeroboortka idin qaban doona service wanaagsan. welcome baanu idin leenahay soo dhawaada. waa markii ugu horeysay shirkadda Juba Airways ay duulimaadyo noocan oo kale ah ka samayso garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso. Maxamed Madani, Universal TV, Boosaaso.